Donald Trump ayaa mar uu shir jaraa'id ku qabtay aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka waxa uu sheegay inuu ka warhayo wararka sheegaya in fayraska coronavirus uu ka soo baxay shaybaadh fayrasyada lagu baadho oo ku yaala dalka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa sheegay oo kale inay dowladda Mareykanku isku dayayso sidii ay go'aan uga gaari lahayd haddii cudurka coronavirus uu asalkiisu ka yimi shaybaadhka ku yaala magaalada Wuhan. Kadib shirka jaraa'id ee madaxweyne Trump, xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa Shiinaha ugu yeedhay inay caddayso waxa ay ogtahay. Mr. Pompeo, xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanku waxa uu sheegay in coronavirus uu ka yimi shaybaadhka ku yaala magaalada Wuhan. Wararka ay warinayaan warbaahinta Mareykanku ayaa sheegaya in coronavirus uu ka yimi shaybaadh la yiraahdo Wuhan Institute of Virology, kaas oo aan wax badan ka fogeyn suuqa lagu iibiyo hilibka xayawaanka. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegay in qof ka tagay shaybaadhka oo tagay suuqaasi uu halkaasi ku faafiyay. Telefishinka la yiraahdo Fox News ee dalka Mareykanka oo ka hadlayay coronavirus ayaa sheegay in Shiinuhu ay rabeen inay adduunka tusaan sida ay ula dagaalami karaan fayrasyada, iyagoo oo rabay inay muujiyaan inaanu Mareykanku awood u lahayn taas. Dagaalka cusub ee Shiinaha iyo Mareykanka ayaa u muuqda mid weji kale isku bedelaya, kaasoo markii hore sal looga dhigi jiray tacriifadaha iyo arrimaha dhaqaalaha, balse khatarta fayrasku dagaalanka ayaa aad uga halis badan sidii hore. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishinka